السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta leh soo dhawaada waa Mina Health aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dadka daawaday videoygii hore inta subscribe-ka ii saartay inta commentiga ka bixisay inta daawatay kulligiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa waxaan idin keenayaa maanta haddana video kale oo aan research kusoo sameeyey sidaan idin sheegay aniga waxyaabaha badan ee aan researchka ku sameeyey ayaan mar walba idinla qaybsadaa soomaalida si ay uga digtoonaadaan ama ay u ogaadaan halista ay leedahay waxyaabo badan oo aan isticmaalno oo aan guryaha noo yaallo aan warka u haynin maanta barnaamijkeeni waxaa idinku wadaa kareemooyinka la isku caddeeyo kareemooyinka la isku caddeeyo inkastoo ay kala yihiin ay kala quwad badan yihiin waxaa maanta idinku soo qaadanayaa ama idinkaga sheekaynayaa general ahaan ama anoo soo koobaya kareem la isku caddeeyo kareemooyinka la isku caddeeyo sababta loogu caddaado waxay tahay iyo dhibaatooyinka ay keento ayaan rabaa inaan idinla qaybsado kareemooyinka waxaa ku jira kiimikooyin aad u badan oon la soo koobi karin kiimikadaas oo ay ka mid tahay waxa la yidhaahdo mercury mercury waxa waaye bir mercury sideedaba waa bir wax bir ka samaysan oo laakiin birtii adkayd oo aan kasi jirnay aan ahayn oo ka duwan oo bir oo sida biyaha oo kale ah waa liquid waa wax dhalaalsan oo maaragtay sidii biyaha oo kale u samaysan ayaa la dhahaa mercury marka walaalayaal kareemadaas waxay keentaa ama mercurygaas ama ingredient ku jiro oo ama waxyaabaha lagu sameeyey waxay keentaa cudurro badan cudurrada badan ee ay keento oo halista ah waxaa ka mid ah liver damage waxa la dhaho liver damage kidney damage kelida iyo wadnaha ayaa damage ku dhaca waxaaba laga yaabaaba inay kelidaada fariisato labada keliba ay kaa fariistaan ama beerkaaga u shaqayn waayo wadnahana of course wuu damage gareeya laakiin labada ugu waaweyn waa beerka iyo keliyaha waayo beerka iyo keliyaha waxay isku dayayaan inay wax kasta oo aan cunno ama aan ismarino inay sifeeyaan ayay isku dayayaan kelida iyo beerka so sababta ay marka hore ayaga damageka u gaaro waa sidaas maadaama ay sifeeyaan dhiiggeena keliyaha iyo beerkuba dhiiggay sifeeyaan wax kasta beerkay soo maraan kelidana way sifeysaa so damageka kale waxaa ka mid ah skinka oo damage ku dhaca maqaarkuna ilaahay wuxuu ugu talagalay inuu protection inuuna ilaaliyo dabaysha naga ilaaliyo qoraxda naga ilaaliyo kulaylka naga ilaaliyo qabowga naga ilaaliyo maqaarku waa sida marada oo kale oo ilaahay noogu talagalay inuu waxyaabo badan oo nagu dhici lahaa oo ayuu naga badbaadinayaa maqaarka marka haddii aad maqaarkii ama maradii ilaahay kugu daboolay ay lagaa qaado halis waxaad u tahay wax kasta dabaysha ku dhibi karta dabaysha caadiga ayaa skinkaaga way dhibi kartaa markuu skinkaaga uu daalo ama uu baaba'o waayo creamka skinka hore ayuu qaadaa caddaanta aad arkayso maaha caddaan oo natural maaha waa caddaan oo xoog lagu caddeeyey oo maqaarkii kore xoog looga qaaday waxaa kaloo ka mid ah xididada oo ilaahay noogu talagalay ee dhiigga mara in caadi loo arko qofka caadiga ah xididadiisu waa qarsoon yihiin lama arko laakiin qofka iscaddeeyey ee maqaarku ka dilmay xididadiis ayaa la arkaa oo bannaanka yaalla waxaa kaloo ka mid ah maqaarkii oo kalarkaagii xataa kugu soo noqon waayey kalarkaagii uu ilaahay ku abuuray hataa dib uma soo noqonayo weligiis meesha damage ayaa gaaraya xataa caddaantii aad raadinaysa iska dhaafee madow aan adiga lahayn ayuu ku saarayaa waayo skinka hadduu damage ku dhaco wuu madoobaadaa hadda kasoo qaad meel aad ka gubatay oo kale markaa gubato skinkii madow buu noqdaa marka taasoo kale ku dhacda skinkii madow aadan lahayn
ayaa ku imaanaya. marka walaalayaa taasna ka taxdira. kareemooyin aadan aqoonin, kareemooyin waxa lagu soo sameeyey aadan aqoonin, ha iska marsanina. iska jira. xataa waxyaabo badan oo inta aan idin sheegay maana ka badan bay bani aadamka u geysataa. wax lasoo koobi kara maaha dhibaatooyinkeeda. kareemooyinkaasna ka foojignaada. oo xataa haddii aadan ogeyn meesha lagu soo sameeyey haba marsanba. haddii aad meesha lagu sameeyey aad taqaano ood akhriso, ogow hadday ku jirto mercury. hydroquino wax la dhahan way jiraan. mercury iyo hydroquino labadooba waa very very dangerous. caafimaadka aad bay halis ugu yihiin. iska jira walaalayaal, ka digtoonaada waxyaabahaas oo kale. barnaamijka intaasaan kusoo gabagabeynayaa. insha allah videoha kan ku xiga wuxuu noqon doonaa video kale oo asaguna interesting leh, oo asaguna waxyaabahan oo kale aan idinla qaybsan doono insha allah. aad iyo aad baad umahadsantihiin. waa idin wada salaamaya dhammaantiina. asalaamu calaykum.